muuqaalka aragtida boodh laga mabsuudo milicsiga jalleecad indhuhu muhdaan oo ma dhaafaan runtii meydhjad baa kula diyaaraa bulshee hamoogaan shirkadda daabacadda casriga ee meydhjad oo inila diyaara adeeg degdegsiimo daacad qurux tayo iyo hufnaanba leh saax xarumaha ay shirkaddu ku leedahay magaalada Hargaysa gaar ahaan xaafadaha Jigjiga yar iyo sidoo kale agagaarka jeelka weyn ee magaalada Hargaysa faahfaahinta intaasi dheerna kala xidhiidh lambarada أنا بدي سوري سوغان بكتر سمايا سودو waan dhaway marka hore ilaahay baa mahad gudida in ka soo qayb galayaasha hawlwadeennada iyo soo qaban qaabiyaasha barnaamijkan ba aad iyo aad baan u salaamayaa salaanta islaamkan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku tartamayaa qaybta suugaanta maanso la yiraahdo dhamays ruuxantii maanso waxaan kula talinayay in markaa waalid aan ugu toosnaa maadaama oo nolosha ka horeysa ay ahayd nolol aad u mug weyn hadii uu wadaayo halka hablahana de sida ay inta ugu socotoon bay ugu socotaa halka raguna wixii uu untamay ka qaadan doonaan insha Allah marka dhamays waxay ku bilaamaysaa ruux kastoo dhamaysiyo mid dhantaalmay waa hore in kastoo dhibaatada dhafarmarar u dheer yahay noqo adoon isdhiibayn dhaaracyadu mid ay hudin kolka dhamaada jiilaal dhirta muruq ka yeeshay dhulku uu qaleyl yahay awrka dhaana ku raran hadduu dhinac u dheeliyaha dhakoolina noqo dheelitiraadka isla dhacdadii timaadaba maaree dhamaanteed dhaqashiya lahaw abid raadhiiska nololeed dheraguna dantaada iyo ku dhaafin maalmaha dheriga dhardhaartaa hoosta ayuu ka noqon dhuxul ilaa waa inantii kaliska xumayd baa lagu oranayaa dhabankaagu iyo noqon midka dhilana dhaayuhu aanay dhugan karayniyo kii dhidha dhamaantii inkastoo dhaliilaha dusha kaaga dhigan uu mid kaloo dhigaagii dhegta kuugu ridi karo ka dhaqaajiyo soo kolka dabin lagu dhigay jidhka qayba dhaawaco daandaanka ku dhigay adigoon dhawaaqiyo gaarsiinin dhiilada noqon ruuxa dhayan kara dudubaha wax ka gale hadhufana dhiraandiri marti gogasha loo dhigay gurigaaga dhinacii hadhaafsiin bariidada ku dhaqaaq waxa tidhi uga tagin dhinaanshaha dhalmadiid ma fiicnaa kii magnuuna haw dhixin maradii dhalaal iyo ogow dhaashigaagana ilaa saman baynu ku jirnaa sariyo hoos wali soogaye qofka maalka ka dhaca marna dheefta ka jara marna dhagax dhadhaabeed duuni kaaga soo dhiga iska waabsho dhaartiyo noqon ruux ka dhiidiya halka uu dhurwaagiyo dhidar hoolmay uu galo lugta adiga oon dhigin ama sii dhex qaadsiin nafta dheelmigeedii halka dhibicdu haysiina qasaro u dheergaad guri lama dhex jiifay inta geed dhimbiiliyo quri ciidle dhaameel adhigaba dhammaantii lula dheer u geliyo ka dhibee dhibiijada dhaqayada sideedaba waxba lagama dhiijeedhay waxaad ka maashaa guga geela oo dhalay inkastoo dhabcaalkaba dhaxalkaaga leedahay dhaqso looga qaadayn saxa dhin ku sooriye dheegaaga kii yaal hasha dhuuxyadeeda ku uldhiilka maygaag xumaan dhiisha haw talan dhashta nabarka diidoo dhayal hadalka haw odhan dhamandaad ma fiicnaa dhalanteed ka dheerow dhabaqsiga wanaagiyaha isku dhafin xumaantana dhuryo adiga oo noqon iyo dhuugu daran neef dhaba gacanka haadiya dhex yar aadmi uu noqo jaandheer dhijaameed dhaqankaagu yuu lumi ka markaa dhashaan garan dhabta kaan ku qabanayo ka ku qaaday dhabarkee dhalinyaro intaa tahay sarta dheer koroo fuul u dhagaysa waayeer sida ubad dhashiisa maansada dharkaynkaba dhammaantii dhangad lagama goosto dhabi baxay kal jiilaal dhumuc male laxaadle yuu godan dhafoorka cidla dhaxantu kaa heli suugaan dhammaad male dhegta deeqi waa hadal cirka biyo ka soo dhacay badda iyo dhanaanka dhalankeeda may rogin ee u dhaabay una dhigay dhuuristeeda maansada sida xerada dhacaneed hoosta looga dhababiyo siduu iigu dhigay kii iga dhaadhacshee yidhi dhicis yaana kaa noqon dhusin hoose kaa gelin eedhudu iyo yartayda adigoo dhambaal sida waxa dhaanto oo kale caaniyo dhanaankood dhura iyo fandhaalkii dhigta adiga oo sida dhidba udubka guriga waxa dhaanta dhoongana inan dhiibsanaan loo dhasalaalaq heeseed saqda dhexe habeenkii kolay tahay dhiroonkiyo dhimbil daba u jiidhay garbi dhoobadeed qoo hadba dhiir riyo soco garbi dhoobadeed qoo dhuux lafaa qaar qalbigaaga dhoofkee dhaka kale balkeen iyo ka dhacbaa ka sii roor maansada dhexroorkeed dhulax kugu dilaaciyo dhuunyo dhismaahiyo dhilowyahan mageedba ee meel dhasle iyo dhajas xidho adoon odhan isku dhoonka geedkaa sida dhowre aan jarin gal xareeda dhooqayn dhudhunkaagu yuu jabin gal xareeda dhooqayn dhudhunkaagu yuu jabin waxaad yar akhridaa goortuu tallaabada mutuxan tarinta dhaafsiiyo tudca ku xigay akhri meel dhasle iyo dhajas xidho adoon odhan isku dhoonka geedkaa sida dhowre aan jarin gal xareeda dhooqayn dhudhunkaagu yuu jabin dhashgariir ma fiicna dhidid aakhiraal iyo dhalandhoolka waayuhu
hadba kay dhirbaaxaan awrka soo dhufaanaba isku saydi waa dhibi gudan dhilatay waa halis luga dhiig ka keenta dhida waran tuurtaa firdhin weeda dhiiqada qof wuxuu dhusleeyaba dhaygagiisu yaabkeed ku dhambalay war ku ma dhambalin naftaade ma dhambalin naftaada oo dheelalow ma fiicnee dhixir beel adoon noqon ruux dhimira oon talin dhega nin haybtii macnaha haybtaas ma ahatii qabyaalada ahayd laakiin waxa weeye in qofka aad dee xulanayso inaad dee ma garanaysa dhinac kasta aad ka eegto haddii kale dee waxay kugu noqonaysaa un cawaaqib xumo marka dambe in qoomamayn keenta dhafaruuruc neefliyo hadba dhugata kii qaba ka u dhiiba aabe dhaylo hooyadaa siin looma dhababaceeyo afka looma dhuubee ka dhaleecadaa nacab ka dhexula badhaadmiga waxa dheelka reebaa iladheedada weeyo neef dhumoo la raacdayn inuu dhinto u dhow iyo dhicir daaqisteedii adna garamar dhuunsiga wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baan idin salaamay dhammaantiin aad baad mahadsan tahay